سيقوم الشيخ قرني ومن معه بالتعريف والشرح عن محمد صلى الله عليه وسلم والبدء في البرنامج والندوة. باسمي واسم سفارة المملكة العربية السعودية نشكر الجميع على ما يقدمه في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويكتب أجركم. كما نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يقدموه لخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم. ونشكر أيضا وزير الشؤون الإسلامية على متابعته المستمرة على هذه البرامج. أسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذه الجائحة، جائحة كورونا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلفونات قفل بركو قرية صغرة تلفونك وقاعدة ماشا سوقيلا جاجر كوقلنا including him مركو قرية صغرة تلفونك جاجر كوقلنا ماشا وقلنا خلاص حاجينا ما تمشي قلنا عنكو باتكيلا بعد تضبط فون حقيقية لا بس قرية مركي لجو no phone no social media واي فاي اوفو كديقا family time انت اللي صيحانها تلفونك ماشا سوق الجرا that's it تلفون مجرو wax ma jiro khalaas waa dhamaad iyadoo la jiifo kala laga soo qaada telefoonka qaar wuxuu kala ma daruuri emergency oo goormo emergency noqday marka waxa loo baahan yahay waalidiinta naftirkiina plan hala sameeyo planka ugu fiican waalidiinta siinaya waxa waaye habeenkii ilmaha inaysan qolka la gelin meel loogu talagalay ay ku dhajiyaan dhalinyarta waxaan leeyahay ka faa'iideyso plan sameeyso yaa dhageysanay maxaa u dhageysanaysaa goorma dhageysanaysaa saddex su'aal markaa weydiisid تنكل وحي تراه أنيجا مرهم إلى قشر قبنا قب. So for that, وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت. Know if all the nation will come together على أن ينفعوك بشيء so that they benefit you for nothing. لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. They will never be benefit you with anything except what Allah has recorded for you. So Allah, whatever that He has recorded for you, it will never miss you. ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. Whatever that the Lord have written for you, it will never miss you. And whatever that is written is missing you, it will just miss you. You will never get it. Whatever is not yours, is not yours. So we don't need to say to ourselves and get more depression. Some brothers get more depression of what they see. Allah gave the ni'mah to others. Why He did not give ni'mah to me? No, it is something that you don't need to be irritated with. It is something that you need to ask Allah subhanahu wa ta'ala. dhalinyarada culimada iyo marti sharafta si guud aad baad u wada salaamaya ku soo dhawaada barnaamijkan sanadlaha oo inoo qabsoomi jiray oo dhalinyarada loogu talagalay. Welcome to the youth, to the ulama, and to all the guests here today. And I'm welcoming you to the 12th annual Mu'tamar, but this one specifically for the youth. So without further ado, I would like to continue with the program. Before our first lecture, I'll be giving a few minutes to one of our guests and organizers of the youth program, speaking on behalf of Al-Ihsan, and his name is Abdurrahman Warsameh. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. علماء دينتا مرت شرفتا دليرتا والدينتا يوم مرت شرفتا كلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جو كهلا أروك الدعوة دليرتا الإحسان واحد بدن ما أورانيو كمنا سيدرانيو laba qodob ayaan oranayaa oo ka hadlayaa qodobka koowaad waxa weeye soo dhaweynta marti sharafta iyo culimada diinka inala jooga oo inoo faahfaahin doona mawduuca halkan ka jira talabaadna waxa weeye codsi iyo dhiirigelin ku socota majliska albayaan iyo cid kasta oo ka shaqeysa dacwadda taasoo ah in la dhiirigeliyo dhariyanta laguna xidho dadkooda iyo bulshadooda tusaale ahaan oo kale mu'tamar kasta oo socda waxaa loo baahan yahay generationka halkan fadhiya ee da'doodu yar tahay in looga faa'iideeyo waayo dadka waaweyn iyo intii wixii ay soo qaadan kareen way soo qaateen marka insha Allah culimada diinka iyo majliska waxaan ka codsan lahaa dhammaan in la joogteeyo
si loo dhiirigeliyo dadkoodana loo baro oo dhaqankoodana loo baro dhalinyarta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mental sicknesses. We got two types of mental sicknesses. One is existing, is real, and that can be caused by the difficulty of life. That type of sickness you need to go to treat yourself. Starting with the Quran, as Sheikh mentioned, you start with the Quran, you start with the Adkar, then you go to the doctor. The other one is he is a da'i living in South Africa for more than 25 years, a businessman and a graduate from Islamic University of Medina, and also a graduate of Rao University, which is now University of Johannesburg. I would like to call upon Sheikh Quran Abdi Muhammad, who will be talking about loving the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam inaan jeclaano. فليتفضل مشكورا. haddii aad tihiin kuwa ilaahay jecel fattabicuuni, yani nabi maxamed baa waxaa lagu leeyahay qul waxaad tidhaahdaa nabi maxamedow, yani saxaabada iyo ummadaada oo kuwa soo socdee dhalan doona ay ku jiraan waxaad u sheegtaa qul in kuntum tuxibbuuna allah, haddaad ilaahay jeceshihiin. yaa ina abuurayso ilaahay inama abuurin. yaa indhaha ina siiyey ilaahay baa ina siiyey. yaa carabka ina siiyey. yaa lugaha ina siiyey. soo ilaahay marka inaan caabudno ma aha, soo ilaahay inaan jeclaanno ma aha. ilaahay wuxuu leeyahay haddaad ilaahay jeceshihiin fattabicuuni, aniga isoo raaca, nabigaad jeclaanaysaan. Some prior knowledge you had around social media, so you say aha, sheikhs, you know, so what are some of the aha moments and some of the learnings and unlearnings of the wonderful program Sheikh Ahmed has shared with us? We'd firstly like to thank, inshallah ta'ala, the Saudi attaché, Sheikh Mohammed Ashur, who was here earlier, but who left. He was tending to some work. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him. Also Al-Ihsan youth group who did a lot of work. May Allah subhanahu wa ta'ala reward them. Inshallah ta'ala, first of all, we'd also like to thank Allah subhanahu wa ta'ala for letting us all meet like this. منهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء.